السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتا دمان oo channelkan ku xiran soo dhawaada mar labaad channelka iga daawanaysaan waa Ridwaan maanta waxaan idin hayaa video aad u qurux badan video aad u fiican bas kan baa sii raaci doonaa meel ka baxsan magaalada Mombasa aan aadi doonaa video khatar baan idin soo diyaari doonaa insha Allah ku soo dhawaada channelkan subscribe ka saar like ka saar ku soo biir channelkan insha Allah waxaan hadda ka sii baxaynaa magaalada Mombasa magaalo leh taariikh dheer iyo nolol mashquul ah لكن waxaan u wajahanahay dhul u dhaxeeya ilaa Mombasa 33 kilomitir balse safarkeenu ma aha masaafo kaliya waa safar u dhaxeeya laba adduunyo mid buuq leh iyo mid degan oo dabiici ah oo aad u qurux badan markaad fuusho wadada Shimba Hills waxa isbedel ku arkaysaa muuqaalkii deegaanka buundooyinkii way yaraanayaan gaadiidkiina way yaraanayaan codka magaalada wuxuu isku bedelayaa hees dabiici ah oo ay ku dhaafan yihiin dabaysha cagaarka magaalada iyo shimbiraha keynta socdaalkani waa sida inaad isbedel gudaha ka dareemayso أخيار ميشان أيان كأديجين فوقا وخيرو قصة شكيشان وعن وضع سيمرنا ميشان هذا عايشان عيتاز بسكت الحمد لله قد يسيس عنينا ياريجينا أنا يعني أخيار كلانا لصعطو وضع سيكونينا بس Shimba Hills waxa aadka ay caan u tahay oo loo soo dalxiis tagaa waa biyadaadka waterfall oo loo yaqaano Shedrick Waterfall biyadaadkani ayaa ah biyo daafaha meel walba adduunka looga soo tago loo imaado loo soo dalxiis tago si loo daawado loo duubto iyo dad qaarna ay cabaanba biyahaasi ay qaataan si ay aaminsan yihiin inay tahay daawo halkan waxaan u sii guda galeynaa albaabihii Shimba Hills qof kasta oo deegaankan ka yimid wuu ogyahay in Shimba Hills ay ahayn meel la arko oo loo tago kaliya waa dhul dadka degan ay aaminsan yihiin in taariikh dheer ay leedahay xayawaanada aadka u badan oo halkan ku nool waa sida maroodiga sagaaraha iyo daanyeerada dadka halkan degan waa Digo iyo Giriama waa dad aaminsan in buuraha ay leeyihiin ilaalo in geedaha ay leeyihiin xikmado in
biyadaadku iyo biyo deegaanku ay leeyihiin meelaha ruuxyada isugu yimaadaan. waxyaa jirkayga haddaan ku waayo waahi waxyeele alla kuwaaway kuwa shay waa shay nafta wareertay haway rax goysay. waxaan bilaabnay inaan sii korno buurihii anagoo faraxsan oo la cadeynayno oo aad u furfuran. xilligan waxaan dareemayaa hawa fresh ah oo qoyaan ah oona ku jirto carafta dhirta. geed kasta wuxuu leeyahay sheeko aan la soo koobi karin. waa dhul aysan si sahal dadka u gelin ayna u aadin, balse haddii aad gasho wuxuu kuu furayaa qalbi cusub. أصحابتا meeshaan waxaa lahaa Cedric Waterfall. meeshaan cabaar dheer aan ku soconaynay, inta gaariga aan ku soconaynay waxaa ka daran inta aan soo lugeynay. muddo hal sac aan lugeynay, muddo hal sac aan lugeynay kan mid biyahan ugu maado oo uu qabaysto. biyihii waa ku qabaystay maasha Allah, dhabarkan u dhigtay. ninka nala socday askariga xataa wuxuu dhahay biyahan hada dhabarka u dhigtid waa masaaj caadi ah, dhabarka ku masaaj gareena adidan furfurnaasho aad qaadeen baan maqdaal dheer biyahan ku qabaysan. hadana socod kale aan ku dhiman iyo daal kale, laakiin intaan socod kale sii galeeno marka biyahan aan rabaa inaan waqti fiican ku qaato oo si fiican ugu qabaysto. mar labaad aan rabaa inaan kulaas aan ku qabaysto. marka meeshaan waxaa lahaa Shimba Hills, waxay Mombasa u jirtaa 33 kilomitir. waa magaalo aad u fiican waaye, meel aad u qurux badan waaye. waa wada coos, wada cagaar, wada shimbiro iyo xayawaano iyo sagaaro iyo waxyaabo badan ayaa yaalo. hada buurti hadda soo korona soo laabashaanka zaaid u adag yahay. marka buurti soo korona soo qabaystay أنا فريشة أعزائي وصحيت غبوك تلكون أنا بدي أنا أهري أي هري مال خوم أنا أهري يا أهري socdaalkeenii Shimba Hills halkan ayaan ku soo gabagabeynaynaa. fiidiyoga xiga waxaan idinku soo gudbin doonaa hoteelka aadka loo xiiseeyo ee ku yaala magaalada Shimba Hills, Kwale County. hamoogaan insha Allah fiidiyogaas ila daawo. fiidiyogan waa fiidiyoga xiga.